jannada ma rabtaa inaad gashid haddaba saddexdan shay oo keliya aan kuu sheegi doono liimaw only saddex shay bis maxay yihiin saddexdaas shay kow ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah taas ma haysaa taas qof walba oo muslima wuu haystaa alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waa furii koowaad oo jannada midda labaad waxaa la imaadaa ma taqaanaa bisha ramadaanna son shantaada salaadoodna tuko bes midda saddexaad maxaa ma taqaanaa carabkan ma ujeedaa carabkan iyo gacantan iyo farjigaaga saddexdaas xumaanta ka ilaali bes xumaanka ilaali nabi maxamed sal ly slam wuxuu dhahay ma taqaanaa yaa ballan iga qaadaya labadiisa bishimood waxa ku dhex jira oo carabkaas ah iyo labadiisa lugood waxa ku jira oo farjiga ah inuu ilaaliyo oo aan janno u ballan qaadaa nabi maxamed sal ly slam mar kale wuxuu dhahay ma taqaanaa almuslimu man salima almuslimiina min lisaanihi wa yadihi qofka muslimka waxaa waaye qofka mu'miniinta ay ka magan galaan carabkiisa iyo gacantiisa marka micnaheedu waxay tahay carabkaas iyo gacantaas iyo farjigaas markaad ka adkaatid micnaheedu waxay tahay dambiba maba gelaysidbo macnaha meelaha dambiga lagu galo waa saddexdaas inta kale darqi dambi kaloo yar inta kale dambiyada yaryar unbaa la imaanaysaa dambiyadaas yaryarna salaada kaa dhaqaysaa marka micnaheedu waxaa tahay jannada ku sugaysaa markaas salaada iyo ashhadu an laa ilaaha ila allah iyo soon iyo saddexdaas xumaha ka dhowrta isku tirsatid jannada banaankaasay kugu imaanaysaa wax kale kuma dhahaya marka ilaahay hana siiya dhammaanteena insha allah haddii aad ilaa intay la soo gaartayna sir yar baan ku wadaa ilaahay waxaan kaaga baryaa inuu jannatul firdaws ku geeyo ilaah subxaanahu watacaala waxaan kaaga baryaa inuu muslim waxa la xusnul khaatima inuu ilaahay kugu diro qofka walaalka oo muslimkana gaarsii si adigu ku ogaada in adiga tahay ducada in adiga ay tahay qofka ay soo gaartana qaybta commentiga aamiin igu soo qor assalaamu calaykum